sida looga hortago shilalka. Hadda waxaan soo aragnay qaababka waxyaalaha dadka ay khatarta geli kara Soomaa. Waxaa ka mid ahay shilalka. Shilalkan way qaabo badnaayeen Soomaa. Marka casharkan waxaan ku baraynaa qaababka looga hortago shilalkaas. Qaababka shilalka looga hortago ayaan baran doonaa. Lambar 1 waa in wadayaasha gaadiidka ay u wadaan si wanaagsan si ay dadku ugu badbaadaan shilalka. Dadka si shilalka ugu badbaadaan waa in si loo wadaa gaariga si ayar. Laakiinse nidaamka oo gawaarida wixii loo sameeyo waaye. Gaariga dadku ugu gadoomaa, xawaaro ku socda dadku ugu gadoomaa, xawaaro ku socda gaari kale ku dhaca, xawaaro ku socda dad dardara. Bilaa xisaab iska soconaa Soomaa. Laakiin gaariga si degan u socdo wax walba dhaqdhaqaaqooda waxa xakameyn karaa. Laakiin wuxuu ku socdo waxa xakameyn kara mar wax walba ku dheela. Marka shilalka waxaa looga hortagi karaa in gaariga si degan ayar loo wado. Qodobka xiga waa in carruurta laga ilaaliyaa waxyeelo iyo wixii qalab ah sida dhalooyinka burburay, macnaha qarshada, iyo midiyaha, macnaha tooreyaasha iyo midiyaalka, iyo korontada. Qofka waxay qarshadu dhibaato u geysan kartaa dhalaa meel ku qaraxday, macnaha dhalaa meel ku jabtay. Cunuga ilmaha ma garto dhul iska fiiri iyo kaba xere iyo ma garto Soomaa. Waa soo ordaa dhalada ku istaagaa, lugta dhac, xididka dhac, halbowlaha dhac, xididada khatarta ah dhac. Waa ka jeexmaa macnaha waa dilaaca. Waxaa suurtagal ah inuu seed go'o oo cunuga saas ku naafo. Marka waxaa loo baahan yahay ilmaha in la ilaaliyo, laga ilaaliyo waxyaalaha khatarta ah oo kaba loo geliyo kale, kabaa lagu ilaaliyo kale. Marka waxaa kaloo ka mid ah midiyaha. Si iska caadi ah midida u isticmaalo waxaa loo baahan yahay midida laga celiyo. Waxaa laga yaabaa mididaas oo qaado inuu isaga isku dhibaateeyo ama cunug kale ugu dhibaateeyo. Marka in waxyaalaha laga ilaaliyo ay ka mid tahay korontada. In ciyaalka loo dhiibo waxyaalaha korontada lagu isticmaalo sida waxyaalaha la shiido kale, daayar damiyo kale la soo dami, macnaha meesha korontada laga daaro kale soo dami la yiraahdo. Macnaha korontada waxyaalaha korontada la xiriiro kale in laga ilaaliyo. Qodobka xiga, qodobka 3 waa in dadku kabo gashtaan marka ay guureynayaan. Macnaha markay habeenkii socdaan inay kabo gashtaan. Badanaa qaniinyada bahallada hoos sida masaska, macnaha bahallada dhulka socda hoos socda sida masaska, hadaa cadaysid macnaha kaba la'aan aad tahay waxaad halis u tahay inuu mas ku qaniino. Marka
maskaxu ka mid yahay sooma xayawaanada xamaaratada waxaa kaloo xataa suurtagal inay af isugu qaniinto marka waxaa loo baahan yahay kaba adag inaad qaadatid haddaad joogto weliba meelaha duurka ah maaragta inaad kaba adag qaadatid si lugtaada baska qaniis eeba waxyaalo u gaarsiin mb fiiro gaar ah ogo waa lagu dhahay daryeelaha caafimaadku waa in uu ahaadaa mid xaadir ku ah goobta caafimaadka qofka kalkaaliyaha ama dhakhtarka waxaa loo baahan yahay inuu ka maqnaan meesha oo ka shaqeeyo meesha xarunta dhakhtarka xarunta caafimaadka siiba kalkaaliyaha inuu maqnaan kalkaaliyaha waxaa suurtagala in loo keeno qof dhaawac soo gaaray qof mas qaniinay qof sun cabay qof wax soo qaleen laga yaabaa inuu u yimaado marka isla markaas waxaa la rabaa inuu daaweyn karo laakiinse dowladdu meesha xaadirku aynayaa daaweynaya qofka shaqadiisu gabaasama marka waxaa loo baahan yahay qof walba oo caafimaad ku saabsan inuu xaadir ku ahaado goobtiisa caafimaadka oo marnaba oo ka marnaan si uu u badbaadiyo dadka u imaanayo waxaa loo baahan yahay marka cashirka haddaa ka heshay leeg saar saa cashiro kale kuu soo daarno